السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي دمان وإذن سلامي رمضان مبارك يعني إذن ليهاي maanta waxaan jeclaystay inaan idinla wadaago rutiinkeena ramadaanka aniga caruurta khaasatan caruurta insha Allah ramadaanka waxaan rabaa challenge ayaan rabaa inaan u qabto waan u bilaabay maanta waa maalintii saddexaad challenge-gaasna waxaa waaye inaan ramadaanka ugu faa'iideeyo khaasatan waxyaabo badan oo ramadaanka ku saabsan iyo waxyaabo badan oo ramadaanka ka baxsan inaan baro insha Allah marka maalinteena waxay ku bilaabatay caruurta si ay u fahmaan oo ramadaanka ay ula socdaan waxaan u soo gaday kalendarkan maanta 3 waayay saa u jeedeen geedkaas ayaa marka maalin walba bedelnaa lambar 2 haddana meesha loogu talagalay ayaan ku xareynaynaa Amazon ayaana ka soo gaday maasha Allah caruurta waa muhiim in ramadaanka ay ka qayb qaataan inkastoo aysan soomi karin haddana in loo sharaxo activity la isla sameeyo aad iyo aad ayay u farxad gelinaysaa waxna way ku baranayaan marka maalin walba waxaa routine inoo ah inaan waxyaabo aan baro marka maanta saa u jeedin warqadii ayaan soo diyaarsanayay kan waa calendar maalin walba waxyaabahan ka shaqeynoo kala waan calaamadeynayna si iyagana ay ula socdaan magacyada Ilaahay subhanahu wa ta'ala maalin walba hal xab ayaan baranaa hadhowna kalar khafiif ayaan marinayaa si aan u ogaano inta magac aan soo dhaafnay waan soo baranay markaad warqadaheeni ayaa soo diyaarsanayaa inta badan waxaan xooga aan saaraa shanta tiiro islaamka hadda waxaan xooga aan u soo saaray sheeg tiirka koowaad oo shahaadada waan ka soo shaqeynay waan fadhiisanaynaa waan baranaynaa waan akhrisanaynaa muraajacana waan sameynaynaa marka salaada ayaa noogu xigto hadda waa kana waan idin tusaayay warqadahan ayaan aad iyo aad u isticmaalnaa ilmahan way u fudud yihiin wayna ku baran karaan wayna sawiri karaan oo yacni color ayay marin karaan marka maanta salaad ayaan xooga saareynaa salaad ayaan barayaa inta salaadoo la dukado magacyadooda xilliyada la dukado macluumaadkan haddii aad u baahan tihiin inaad nagala qayb qaadataan oo caruurtaad uga faa'iideystaan waxaad ka heli kartaan Facebook page-kayga ayaan soo gelinayaa halkaas markii aan soo geliyo idinkan waad la degeysaan sidaas ayaa ii fudud Facebook page-kaygana Monos Home ayaa la dhahaa linkigan waxaan soo gelin doonaa hoos ayaan ku soo qori doonaa halkaas ayaad ku dhufan kartaan follow iyo like saar insha Allah idinkan caruurta ugu faa'iideeya warqadahan kalena waxaa waaye warqado oo la ranjiyeynayo maasha Allah saa u jeedin qaar waxaa waaye ramadaanka ay ku saabsan yihiin qaar waxay ku saabsan yihiin shanta tiiro islaamka saan aday aan idin sheegay salaada markii aan dhammeeno insha Allah waxaan ku xajin doonaa sakada muhiimadda ay leedahay sakada sababta sakada loo dhiibo waxyaabahaas oo dhan ayaan rabaa insha Allah inaan hadhow caruurta aan u sharxo macluumaadkan insha Allah waxaad ka heli doontaan Facebook page-kayga hadda markii aan akhrinay oo magacyada Ilaahay subhanahu wa ta'ala mid kamid ah markaan barano kalar yar oo khafiif oo kafee ayaan marinayaa caruurtana si ay ula socdaan inta ay barteen anigana si aan ula socdo aan iskugu dadarsoomin marka maalin walba hal magacna waan baranaa waan idin tusin doonaa kalarkaas khafiifka ayaan mariyaa si aan u ogaado marka maasha Allah kulli ani ahaan waxaan u arkaa caruurta ramadaanka inay ka qayb qaataan activity aad isla sameysaan loo sharaxo sababta muhiimadda ay leedahay wax wanaagsan ayaan u arkaa haddana waxaa la gaaray xilliga quraanka aan akhrisan lahaynay wax yar oo quraan aniga ayaa hadda quraanka koob ku hormarayo ayaga waxyaabo kale iska sii sawirayaan salaadii markii aan u sharaxay kadib warqadahoodii ayaan u dhiibay oo ay rinjiinayaan aniga ayaa wax yar quraan iska sii akhrinayo inta aan ka gaaro markii rinjigoodii ay dhameystaan insha Allah waxaan u soo laaban doonaa activity-kii kale oo noogu xigay insha Allah haddii muuqaaladan oo kale aad ka hesheen oo aad rabtiin inaan soo badiyana la soo wadaaga haddii aan maalin walba vlog aan idin soo duubayo oo bisha ramadaan waxyaabaha aan qabano insha Allah hoos aad igu soo qori kartaan ama haddii ay jiraan wax kale oo aad rabtiin channelka inaan ku soo kordhiyo waa ila soo wadaagi kartaan hadda waa kana warqadana maasha Allah aad iyo aad ayay inoo caawisaa salaada quraan
sheeg waxay ka hadlaysaa dhikir iyo waxyaabo badan. Marka wixii aan sameyno waa calaamadeyneynaa si ay ula socdaan maalin walbo wixii aan qabanay. Hadda marka waxaa la gaaray caruurtii quraankooda inaan isla akhrino. Warqadaasi waxaa ku qoran maalin walba in la akhrinayo, marka maalin walbana waan akhrinayo. Waxaan rajeynaya insha Allah saaxiibay inaad ka hesheen bloggeena iska yar. maanta oo sabti ah inoo duubay insha Allah marka until next time. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.